ayadoo in dhawaanahan baleysla dhaxmarayay warar ah inuu isbitaalkii guud ee gobolka Galgaduud ee ku yaalay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka uu xirmay kadib markii ururada Jesbo iyo Iido oo isbitaalkaasi ka howlgali jiray ay shaqadoodii joojiyeen halkaasina ay ka dhacday shaqaaqo ay ku geeriyooday hal ruux ayaa waxa hadalladaasi beeniyay maamulka isbitaalka guud ee gobolka Galgaduud Dr. Ahmed Mahdi Maxamed agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka Galgaduud ee magaalada Dhuusamareeb kana mid ah dhaqaatiirta isbitaalka oo halkaasi saxaafada geeyay ayaa waxa uu sheegay inuu isbitaalkii shaqeynayo oo uusan xirmin wararka sheegay inuu isbitaalkii xirmana uu yahay war been abuura inaan u mahad celino Home Cable TV maanta nagu soo booqday Dhuusamareeb asagoo xaqiiqo raadis ah in isbitaalka gobolku xiran yahay in kale runaantii isbitaalka gobolku ma xirra horeyna uma xirray haddana ma xirra mana xirmi doono insha Allah shaqaaqa yar ayaa meesha ka dhacday oo dad muxuu ahay soo abaabulay oo dad xooga aragtidoodu gaaban tahay ay sameeyeen ka bacdina la yiri isbitaalkii waa xirmay oo irdaha la soo dhiftay arrintaas arrin jirta ma aha isbitaalku waa furay maalinkaas xataa dhibka ayay mar asagoo socda ayaan shaqeynay shaqadanada inaba Allah ka dhigay waxa uu ka bedelay ma jirin Dr. Ahmed Mahdi Maxamed waxa uu sidoo kale ugu baaqay dadka wararka been abuurka fidinaya inay iska deeyaan oo shacabka Soomaaliyeed iyo qurba joogtaba uu sheegayo in isbitaalkii gobolka uu furan yahay oo na shaqeynayo marka waxaan rabnaa inaan cadeyno isbitaalku waa furan yahay bukaanada muxuu ahay meel kasto ay joogaan waan u sheegaynaa dadweynaha meel kasto ay joogaan waan u sheegaynaa dibad iyo gudaba waxaan beeninaynaa muxuu ahay arrintii ahayd isbitaalkii gobolka Galgaduud ee Dhuusamareeb irdaha ayaa loo laabay wuu xiran yahay haddii irdalaabadu ay ahayd muxuu ahay hay'adii Jesbo iyo Iida okay ayagu way guureen wayna tageen Ahmed Umar Sheikh Nuur Home Cable TV Dhuusamareeb